tiro hoobiyaal ah ayaa waxa ay xalay ku dhaceen meelo ka mid ah xaafadaha magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle kuwaas oo jugtooda inta badan laga maqlay xaafadaha magaalada Jowhar waxaana xigay rasaas fara badan oo hiradiyeen ciidamada kala duwan ee ammaanka ee magaalada. hoobiyaasha ayaa waxaa la sheegay inay ku dhaceen goobo ay ka mid yihiin agagaarka madaxtooyada Hirshabelle, xaruntii hay'adda UNICEF iyo dugsiga Sheekh Xanafi iyo goobo kale oo ka tirsan xaafadda Horseed iyo hanti wadaag ee magaalada Jowhar. mas-uuliyiin horkacaya wasiirka wasaaradda amniga maamulka Hirshabelle ayaa ku baxay deegaanka la yiraahdo Bolog oo 7 kiiloomitir dhanka bari ka xiga magaalada Jowhar, halkaas oo loo maleynayo in hoobiyaasha laga soo tuuray. waxaana saraakiil ka tirsan laamaha amniga ay sheegeen in wax khasaare ah aysan ka dhalan hoobiyaasha, ha yeeshee qalqal amni ay ka jirtay magaalada sida dadka deegaanka ay sheegeen. wasaaradda amniga maamulka Hirshabelle ayaa war ka soo baxay waxaa lagu sheegay in ciidamada amniga ay ka hortageen hoobiyaal ay ku soo tuureen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. qaswadayaasha Al-Shabaab ayaa isku dayay inay carqaladeeyaan amniga caasimadda Hirshabelle ee Jowhar kadib markii hoobiyo ku soo tuureen. laamaha amniga Hirshabelle oo heegan ku jiray ayaa goobihii ay ka soo tuureen gaaray iyagoo halkaas ka firxaday. goobihii ay ka soo tuureenna waxaa hadda jooga ciidanka, mana jiro khasaare ka dhashay ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda amniga ee maamulka Hirshabelle. ugu dambeyn, wasaaradda amniga Hirshabelle waxa ay sheegtay in xaaladda magaalada Jowhar hadda ay degan tahay isla markaana aysan jirin wax cabsi amni ah oo ka jira. waxaana lagu soo waramayaa in ciidamada ammaanka ay saakay howlgallo kala duwan ka wadaan xaafadaha magaalada Jowhar, gaar ahaan kuwa u dhow xarunta maamulka Hirshabelle. habeen ka hor ayay ahayd markii weerar bambaano ay ku dhaawacmeen 3 ka mid ah xildhibaanada Hirshabelle ay ku dhaceen meelo ka mid ah magaalada Jowhar, waxaana falalkan amni darro ay ku soo aadayaan xilli la filayay in dhawaan magaalada Jowhar ay ka bilowdaan doorashada xildhibaanada aqalka sare iyo kuwa aqalka hoose ee golaha shacabka.